ilaa laga gaaro inay doorashooyin xor iyo xalaal ah ay qabato. Dowladdu markay qaldan tahay qaladka waa laga qabanaa, laakiin qaladka waxaa looga qabanaa si sharci iyo sax ah looga qabanaa. maxaa ula jeedaa inaan ku riixo ilaa laga qabanayo doorasho cod iyo xalaal ma awood baad adeegsanaysaa waya qaybtan waa shaqadii diblomaasiyadda waxaad ka soo shaqaysay safaaraddii Saudi Arabia safaaraddeena qarankeena Soomaaliya Saudi Arabia Urdun iyo Bahrain oo aad gacanta ku haysay maxaad ugu qabatay shaqada safiirnimada Soomaaliya Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida aniga waxaa lagu magacaabay safiirada Soomaaliya sanadii 2015 waxaan magaalada Riyadh ka degay bishii May waxaan ka soo baxay bishii May 2018 saddex sano oo maalmo dhiman ayaan Soomaaliya safiir uga Saudi Arabia safiir degan Bahrain safiir aan deganayn المملكة الأردنية الهاشمية سفير عند جنين على سفير هذا بيقولوا له حلو قياسه لبعض الحركة إسرع صدام اللي هو سفير كجوب تضبجر أيام الحين ياش الصومالي ما شاء يتجان سفيرك ضلك إنه وحكرنا ما يبقى واحد جربه لكن ذاتك وحكرنا ما يسلها فيسفهم له إنه يسرق يواي تضبط سفر مدحوين أيام صومالي سعودي سوداء فيه مدح الصومالي كنت تكتب لبا سفر oo ra'iisul wasaare ayaan geeyay Soomaaliya 1990 wixii ka dambeeyay kaalmooyinka ugu badnaa ee ay hesho Saudi Arabia ka heshay ay heshay xilligaas aniga meesha aan joogay kaalmadaasi waxaan u maleynaa inay maaragtay tahay ilaa iyo hadda mid ugu badneed ay Soomaaliya ka hesho dalka Saudi Arabia muddadaas aniga aan joogo koobnayd kaalmooyin dhaqaale oo akaamka loogu soo shubay screen-ka soo baxay ay ka heshay waqtiga xasan way ka heshay waqtiga farmaajada way ka heshay kaalmooyin ciidan ay heshay oo waxyaabo isku difaacday dhaqaalaha maxaad ku qadari lahayd ma noo sheegi kartaa nambarka dhaqaalaha Soomaaliya ka heshay $1 milyan mar la siiyay dawladda Soomaaliya 50 milyan mar loo soo shubay 52 milyan waxa looga soo bixiyay rasaas ayaa looga soo bixiyay kaalmooyin bani aadamnimo oo saqiinimo badan ay ka muuqato ayaa marka 120 milyan baan hayaa hadda mudan inta aad sheegtay waqtiyada tan 20 milyan waa waqtiga xasan waaye maxaan ku yiraahdaa iyo tababaro iyo daaweyn iyo waxyaabo oo hadii la lacagay xoolo badan ah yaa bixinay yaa bixiya lacagtaas okay waxa lagu taakuriyay ciidamada iyo daawada ciidamada waxa loo gaday rasaas badan loo gaday oo dawladda Soomaaliya u suura gelisay ciidamadeeda iyadoo ay rasaas siisato oo mararka qaarkood laga yaabo suuq hadii ka gadi lahayd xoolo badan ay uga bixi lahaayeen xiriir soo kobcaya ayuu ahaa xiriir soo hagaagaya ayuu ahaa xiriir meel waa ku qasnada Soomaaliya waa ku hubsatay lacagtaas dawladda Soomaaliya jeebkeeda ayay ku dhacday wasaaradda maaliyadda ayaa og ra'iisul wasaarihi hore ayaa og madaxweyne xasan sheekh ayaa og madaxweyne farmaajo ayaa way 50 milyan ee 20 ku xiga isla waqtigaas bay ahayd waqtigii madaxweyne farmaajo la siiyay dawladda Soomaaliya 50 milyan cash account ku dhacday bangiga dhexe ku dhacday wasiirka maaliyadda la wareegay maxaa lagu qabtay lacagtaas keenida iyo abaabulkeeda aniga shaqadayda ku adag ku agtahay 20 iyo 50 kaasi 70 milyan sida loo maamulay mana la wadaagi kartaa xataa kuma yeelan karo aniga dawladda Soomaaliya lacagta markay account ku soo dhacdo hay kale leedahay safiir wax kuma laha xataa ma aaminsantahay sida saxda ahayd in loo maamulay maadaama safiir kulli hadaan dawladaha habkii wax loo maamulay habka gedisanaa damacsan kuwa cilmiga mudan ma aaminsan tahay 70 milyan 52 intaan loo imaan ama aan isku qabto 100 iyo 20 milyan si sax ah loo manage kari loo maamul walaalow adiga iyo dadka Soomaalida waxaan rabaa inaan idin la wadaago safiirku wuxuu hamigiisa u yahay xiriir labada u dhaxeeya inuu hagaajiyo hay'adaha gudaha muwaadin baa kala mid ah siyaasi baa kala mid ah diblomaasi baa kala mid ah laakiin aniga hamigayga koobaad markaan diblomaasi oo dibadda jiro waa in xiriirka labada dalka aan martiga ku ah iyo dalka diray xiriirkooda saan ku hagaajinaa looxa inaan ka soo baxay
sacuudiga maxay nooga bedesheen 120 milyan والله بقول له 20 مليون طبعا سعودي وصومالي صاحبتنا waxa qota maxay nooga bedesheen mudane wax oo dhaqaale ah amba dekad ah amba airport ah oo dawladda Sacuudi Arabiya loo saxiixay xilliga ay heshiis hoos waliba anigu waxaan ahaa safiir yiraahdo madaxweynayaasha ayna ka wada hadlaan intaana bilaabin wax sir ah oo labada dal u dhaxeeyo aniga ay qarsoonaan kara ma jiraan si aan u macno beelin waxaan u xaqiijinaa dadka Soomaaliya meel kasta ay joogaan madaxweynaha labisan ha noqoto ama madaxweynaha ka horeeyay ha noqoto wax heshiis hoos ah oo Sacuudi Arabiya lala galay oo dawladahaas ay ku bedeleen in aanay jirin صوتي هاد قاعدتي قذا فري ah ma qada lacaan dunida ma jirto wixii la isoo xisaabaad kale ma la xoojinaya kamid waxaan firiga ahayn in adiga saaxiib la noqoto oo dalkan aad isku fiicnaatiin waa sanaadiiq badan oo maalgashi samaysaa jirta horumarinta ka shaqeysaa jiraan Yurubiyaanka ay leeyihiin mararka qaarkood kaalmooyinka waxay horseed u noqon karaan xiriir inta ka balaaran noqdo oo dhaqaale iyo lagu abuuro wada lagu dhisaya laakiin dhaqaalaha ka dhalanayo xiriir baa isku rakibayo faa'iido badan ka wayahay waqtigii dawladda qadar la go'doomiyay oo wadamada Sacuudiga Bahrain Masar iyo Imaaraadka go'aanka ay qaateen safiir baad ahayd Soomaaliya go'aan waxay qaadatay inay u dhaxayso siyaasadda iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee wadamadii qadar iyo inta baan akhriyay maxaad u qaadateen go'aanka inaad dhaxda ka istaagtaan oo tirahdaan intana ma jiro xaggan go'aanka dhaxdhaxaadnimo ma ahayn dawladdeedu waxay la safatay qadar ay la safatay go'aanku dhaxdhaxaadnimo ma ahayn dawladda Soomaaliya qadar ay la safatay laakiin dawladdeedu waxay sheegatay inay dhaxdhaxaad tahay bimacna noo cadeyn waxaan idinku cadeynaa dawladda Soomaaliya hab dhaqanka dambe saddexdii dawladood ee hadda ay safiirada ku lahayd dawladdeedu safiir kuma laha dalka Imaaraadka dawladdeedu safiir kuma laha dalka Sacuudiga dawladdeedu safiir kuma laha dalka Masar saddexdaba safiir la'aan baana dawladdeeda hal mar isma aanay qartabin dalka qadar hal aragtin isku aanay qaba dacaayad ay ogtahay dawladdeedu ay wadamadaas qaar kamid ah kula dirta sida Imaaraadka oo kale sida Sacuudiga oo kale waxyaabahaas oo calaamado badan ayaa jiray marka dhihidda dhaxdhaxaad baan nahay haa dawladdu way tiri laakiin dhaqanka dhaxdhaxaadnimada dawladdeedu ma lahayn laakiin dhaqanka diblomaasiyadda iyo qaanuunka waxay icraabaan alfaada amaba waadiska haddii bayaan ay soo saartay dawladda oo wasaaradda arrimaha dibadda tiri annaga waxaan u dhaxaynaa dhinacyadaasi miyaysan ahayn go'aan dhaxdhaxaado adiga Sacuudiga joogay safiir ka ahayd aad qir diblomaasiyadu maya dhihid kaliya ma aha diblomaasiyadu waa ishaaraad signals way aad bixinaysid markaad meel u sii socoto meel u soo socotid safiirada qaar ay tagayaan maamul goboleedyada ay la shirayaan safiirada qaarna airportka loogu go'doominayo wadamada qaarka dacayad idman ay maagayso wadamada qaarka ammaan idman lagu sheegayo maxaad ka ogid go'aankaas maadaama safiirkii Sacuudiga noo joogay aad ahayd xilliga oo casriga madaxweyne Farmaajo hay'adaha dastuuriga ama go'aanada u idman ma aha hay'adaha go'aanka qaato ama go'aanka lagala tashado laakiin waa meel aad u kooban waaye dawladnimadii buugta ku qoreed iyo mid aan soo arki jir iyo mid aan damacsana midna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuma arkay marka go'aankaas waxa maadan ku ogeyn la qaatay maxaad kala kulantay dawladda Sacuudi Arabiya marka go'aankaas dawladda Sacuudigu waxay ku dhaganayd ay rabtay in xiriirka Soomaaliya iyada oo bilow ahaa oo runtii ay wax badan ay rabtay inay la qabato inuu sii socday rabtay marar badan waa leeysi yimid marka ka bacad ilaa 3 jeer oo maalin madaxweyne inuu tagay oo booqasho ah wax badan way wada hadleen laakiin xiriirku waxa uu ku soo dhamaaday hadda meesha uu taagan yahay faylka diblomaasiyadda halkaas aan ku xirayaa wada shaqeyntaada xukuumadda federaalka Soomaaliya qaybihii dambe ee wareysigeena barnaamijka ayaad weli daawanaysaan daawadayaal oo barnaamijka ugu dashanad waxa marti ku ah murashax madaxweyne safiirkii Soomaaliya Sacuudi Arabiya sidoo kale wasiirka warfaafinta waliba xukuumadda hadda jirta isagu iska casilay daahir maxamed geelle ayaa marti inoogu barnaamijka hadda iminka in la soo qabsateen murashax madaxweyne wada shaqeynta xukuumadda hadda jirta sanad ama maalmo dhiman ama bil dhiman ayaad ahayd wasiirka warfaafinta ra'iisul wasaare waqtigaasi xasan cali khayre ayaa ku magacaabay xilkaas
12 bilood kadib shaqadii waad ka tagtay waraysi aad siisay VOA laanta afka Soomaaliga ah waxaad ku sheegtay inaad weysay space aragtiyo aad soo kordhin lahayd iyo gudashada waajibaadkaaga aad ka weysay sidaasina shaqada uga tagtay ma dhabba inaad isqabateen markii intaas laga soo tago xogta ra'iisul wasaare حاشا لله xasan cali khayr حاشا ama madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo حاشا لله مرة اسمه maxaad uga tagtay shaqada waxaan uga tagay shaqada anigu magac soo ma doonan laakiin waxaan soo doontay space aan hibadeyda iyo tayadeyda iyo aqoonteyda iyo waxqabadkayga aan ku muujiyo levelka wasaaradda waa ii furneed oo dib u dayactirka iyo isku dubaridka iyo habeynta iyo message-ka dowladda aan qurxiyo ayay ahayd taas waana ku guuleysay waana haystay laakiin golaha wasiirada kaalinta aan ku lahaa iyo ka safiir nin ahaa baan ahaa qof aqoon-yahana baan ahaa kaalinta aan ku yeelan lahaa siyaasadda Soomaaliya guud ahaan geedi socodkeeda iyo nidaamka ay tahay spacekaas ayaan jirin golaha wasiiro oo waxaan imid awoodii dastuurku siinayay oo sooyaalku siinayay aan lahayn sidaas daraaddeed ayaa waxaan dareemay in waxa xilka aan ku magacaabanahay oo inaan xubin ka ahay golaha wasiirada ah iyo awoodda aan leeyahay aanay islahayn maxay kula tahay in waajibaadka dastuuriga u ogolaanayay inay adeegsadaan awooddooda inay adeegsadaan waxa waaye aad iyo aad ay su-aashaas muhiim u tahay Soomaaliya iyo maqal madaxweyne Soomaaliya hal warqado maaga waa mid ra'iisul wasaaraha uu ku magacaabayo inta kale golaha wasiirada ka yimaadeen ra'iisul wasaarahana ka yimaadeen wasaaradaha ka yimaadeen waxyaabihii golaha wasiiradu ay wada lahaayeen ayaa waxaa dhacaysay in madaxtooyada inta lagu soo koriyo loo keeno oo meel laga xalaaleynayo ay noqoto oo xataa ay gabaan filtrationka inay kala saaraan waxyaabaha qaarkood hal soo jeedin oo madaxweynaha xaggiisa ka timi ama rabitaankiisa oo golaha wasiiradu ay celiyeen ma jirin madaxweynuhuna nabi maahan waana qaldami kariyaa waana saxnaan kariyaa sidaas daraaddeed inputka ay wasiiradu ku leeyihiin ayaa wuxuu ahaa wax aad iyo aad iyo aad u yar sidaas daraaddeed waxaan isku mashquuliyey markaan imid amba xagga ra'iisul wasaaraha ha noqoto amba xagga madaxweynaha ha noqotee inaan afkaaro isdaba joog ah iyo ra'yi isdaba joog ah oo siyaasado badan lagu saxayo inaan la socodsiiyo oo aan la wada ma la fariistay madaxweynaha saa ma la wadaagtay madaxweynaha ma la wadaagtay madaxweynaha shakhsiyan xaasha lilah aad mar iyo laba iyo saddex ma aha marka waxaa ii muuqatay dowladdu inay meel ku socoto muxuu kugu jawaabay mudane madaxweynaha muxuu ku yidhi madaxweynuhu waxyaabaha qaarkood jawaab sariixa ma bixiyo laakiin ma yeelo marka jawaabo badan oo maaragtay maxaan ku yidhahdaa haddana waxaa ii soo muuqatay afarti shay oon markii dambe sheegay oo adigu laga yaabo inaadan u sheegin dadkaaga laakiin inay maqleen laga yaabo dowladdu inay soo muuqato inay samayn rabto maalan waxaa ii muuqata dowladdu inay guluf qaadi rabto oo maamul goboleedyada la diri rabto dagaal Soomaali dhexdeeda ah xataa mid siyaasadeed ha noqdo inaan qayb ka noqdo mar rabo waxaa ii muuqata dowladdu siyaasiyiinta dalka la joogta inay rabto inay ka adkaatay baabi'iso ay guluf qaadi rabto aniga qofkan shariiga la ahay oo siyaasadda ila leh qofkan dilaya inuu noqdo mar rabo dowlad dilaysa inaan qayb ka noqdona mar rabo dowladdu waxaa ii muuqata inay warbaahinta rabto inay caburiso anigana warbaahinta gaarka waxna waan ku lahaa waxna waan ku leeyahay inay jirtana waan rabaa in la caburiyo ama la baabiyana raalli kama ahayn dowladdu waxaa ii muuqata siyaasad arrimo dibadeed oo danta Soomaaliya marka dambe la fahmi doono inay dhaawacday inay guluf ugu jirto arrimaha idilaan diidanaa inaan ka noqdo siyaasad aan waafaqsan afarta qodobaan kaga dhaqaaqanay dabcan qodob aan markaas sheegin waan ka leexleexanay ayaa jira oo aan isirsi kale aan loo qaadano arrimaha amniga ah waayo amniga gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed aaga taagan naftooda ku waayo ku dhaawacmo habka loo hogaaminaa waa ila qaldan yahay siyaasadda lagu hogaaminaa waa ila qaldanta laakiin iyagu waa ila quman yihiin السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ورابي وأهرب سرعي. هاي. وعكلوا إذا وجدنا ويلو أنت ودوا سوى حسين هل بعدين ما ركتين. هذا. جيل بدنا صارني. هذا إلا قرمي كام قنتاي. هذا الشيء صدع مع الماضي كم خنت. استنى عيل هذا. استلاب استلاب. ما عاد عشرة. هذا سوق الكاري جيلك والقورة ديني.
ديار طبعا لغاية ديار حتى hormuud 4G internet xawaaro sare leh goob walba iyo goor kasta. hormuud isku xiraha bulshada. waayahay magaalada muqdisho waxaad uga qayb gashay shir midowga murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya. nuxurka shirkaasi ma ku weydiinaya sababtoo ah waxaan ogahay in halkaad u socotaan ay tahay Villa Soomaaliya waxaad ka cabanaysaan ay tahay Villa Soomaaliya ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudiyada doorashooyinka tan ugu muhiimsan oo isku haysta ah ma ku weydiinaya taxliiladkaas waa inta daawadahigan uu hayo anigana aan hayo ka warrama haddii dawladdu ku adkaysato sida hadda ay wax u wado aniga qof ahaan waxaa iga go'an inaan dawladda Soomaaliya ku riixno ilaa laga gaaro inay doorashooyin xor iyo xalaal ay qabato dawladdu markay qaldan tahay qaladka waa laga qabanaa laakiin qaladka waxaa looga qabanaa si sharci oo sax ah looga qabanaa maxaa loo jeedaa inaan ku riixo ilaa laga qabanayo doorasho cod iyo xalaal ma awood baad adeegsanaysaa waa anaa fasilaya taas waxaan ku fasiraynaa xaq oo joogto ah waayo qofka inuu doorashooyin qabto madaxweynaha loogu leeyahay mandatekiisa kuma jirto inuu doorashooyinka afduubo dadkayga Soomaaliyeed ma rabo dhagahooda inay colaad maqlaan mana rabo indhahooda inay arkaan isbays siyaasadeed oo wax lagu xallin karaa weli ii muuqdo isbayskaas baan ku raadinaynaa madaxweynaha marna codsi aan ugu jeedinay marna baaq baan ugu jeedinay marna siyaasiyiinkuna bulshada Soomaaliyeed aan la hadalnay waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaaliya oo nool oo neefsanayo inuu ka qayb qaato Soomaaliya doorashadeeda inay nabad ku dhacdo inay cadaalad ku dhacdo xataa madaxweynaha waxaan rabnaa inuu ka qayb qaato madaxweynaha saaxiibadiisa inay arrinkaa gacan ku siiyaan baan rabnaa dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisa waxba ka dhiman dastuuriga ah soo ma ahan madaxweynihii yiri doorasho qof iyo cod aan dalkan ka hirgelinaya oo aad ku diideen murashaxiintii iyo qaybihii kale dadka tartamay dhaheen uu ku shuban rabaa dad u diyaarsada ka qayb qaadanaya soo ma ahan madaxweynihii wada hadallada madaxda maamul goboleedyada la fariisteen nooca doorashada ban lagu heshiiyey ogol goormuu doorasho afduubtay goormuu yiri doorasho xalaala oo qof iyo cod dalkan kama dhacayso awood wax ku xukumaya okay warkaas aad iyo aad u fiican yahay laakiin maanta meeshay ku dhiman lahayd bay joogtaa horta madaxweynuhu doorashooyin xor iyo xalaal hal habeen kama aanu shaqeyn tira koob qof iyo cod ah qof iyo cod ah qof iyo madaxweyne Farmaajo siyaasad ahaan uu sheegay laakiin madaxweynuhu waa sheegay tira koob bay u baahneed dhaqaalay u baahneed nabadgelyo u baahneed isla ogolay u baahneed shuruuc bay u baahneed madaxweynuhu haba yaraatee aagaan nabadaysanay inuu soo yareeyo maahine si ma kordhin hal qodob waaye way ii kaadi su-aashan waa muhiim dhegeystu aad u xiisayna waayo waxaan rabaa madaxweynaha iyo inta la socoto inta badan waxay yidhaahdeen doorasho qof iyo cod rabo qof iyo cod marka la qabanayo waxaa loo baahan dhowr boqol oo kun oo qof oo ka shaqeynaysa Soomaaliya oo seejooyinka istaagtay ma fursadaas maxaa loo siin waayo lama siin lama ogola sanadka ugu dambeeyay qof iyo codka aan qabana laakiin haba yaraatay fiir markii guri oo 2 sano in lagu dhiso u baahan aad tiraahdeed 2 sano markay ka dhamaato 2 bilood ay ka harsan tahay 2 bilood aan ku dhisaa waa madaxweyne Soomaaliyeed ma rabno hadal adag inaan ka niraahdo wixiisa laakiin madaxweynuhu dadku waxa uu sheegay waxaan dhici karin waxa uu ka shaqeeyo waxa uu ka howlanayn taas waa mid heshiisyadii ku taagan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalin oo colaad maamul goboleedyada waxalale oo horin karo oo uu iska daayay ma aanay jirin ciidan oo dowladda inta ku qaaday meel geeyo ha noqotay marka walaalow in aad colaad horinaysid oo ciidamadii Soomaaliya la awal marra ay intay soo fadhiisteen isdileen ay isku oriyaan oo maamuladii mid kasta aad ciidan u dirtay oo meesha tagtay doorashooyin dhiig ku daatay aad bay dhaba ku qabatay oo mid kale aad ku qabatay dhuusamareeb ku qabatay dad aad ku leysay oo maxaan ku raahdaa maxaan ku raahdaa Jubbaland aad inta tagtay ciidamada qaranka iyo ciidamadii maamul goboleed labada waa ciidamada qaran aad isku dishay dalkii aan nabadaynayo dalkii aan doorasho ka qabanayo wax baan qurxinayo aad tiraahday isma qaadataa la yiraahdaa wayahay
midowga murashaxiinta oo aad ka mid tahay wax ah in washamsi lagu qaado madaxweynaha 4 sano ka bacdiba madaxtooyada jooga oo meesha laga saar mooyaan wax kale oo idin mideeya ma jiraan waxyaabo badan aan mideeyo anaga horta nin murashax oo aan wadano barnaamijkiisa aan la dhacnay ee aan isaga u deysan aan ma jiro maxaad ka rabtaan madaxtooyada marka haddaadan wadanina aniga barnaamijkayga wataa ragkaan barnaamijyadu way leeyihiin baarlamaankaan kala bixin doono hal shay waa isku waafaqsana siyaasaddii 4 sano madaxweyne farmaajo oo dalka ku waday amnina nooma korin maxaan ku rahdaa isla socodna nooma korin wax macno leh oo ay noo soo kordhisay haba yaraatee ma jiraan siyaasaddaas soomaaliya iyo baarlamaankeeday u taallaa ha lagu sii socdo iyo yaan lagu sii soconin annaga waxa noo yaalla waxa ay tahay baarlamaan aragtida soomaaliya iyo rabitaankeeda ku yimid inuu meesha yimaado haddii loo gar dhigto ay yidhaahdaan 4 sane soo socoto asagiyaan ku celinaynaa baarlamaanka soomaalida annaga waxaan ka qabno ma jiraan wax kalena maahayne shaqadiina koowaad waa inaad madaxtooyada maxamed cabdullaahi farmaajo sida kursigaasi horta asaga aad uga saari lahayd inaad ka shaqaysaan kadib adinkoon wax idin mideeya oo mabaadi' siyaasadeed ah ama fikir aysan jirin aad tidhaahdaan xaya alfalaax haddana hadday bilaabanaysa anaa ku habboon iyo anaa ku habboon soomaaliya maqal maxamed cabdullaahi farmaajo ka bixintiisa ma aha barnaamijkeenu waa doorasho xor iyo xalaal ah ka bixinta dabaalamanihin ka bixinta iyo ku-haynta baarlamaanka iskale annaga waxaan rabnaa asagoo dadka lamida oo murashaxa inuu wax ka tartamo taasina walaalow dembi ma aha mushkiladda soomaaliya maxaad ku qeexi lahayd hal jumlo runtii way adag tahay mushkiladda soomaaliya in hal jumlo lagu qeexo laakiin waxay ila tahay u bislaashada dowladnimada soomaaliya ayaa wax badan ka dhigan yihiin xalkeeda maxaad ku qeexi lahayd dimuqraadiyo garguuranayso inay dhaanto dictaatoriyad degdeg ah dadaalka ugu jirto kursiga madaxtinimada soomaaliya 2020-2021 waxaa tiri dowladda sacuudi carabiya xiriir lama lehi mana ay taageerayso iyaa ku taageeraya dowladeed ku xiran tahay maxaa yeele waayadan waxaa badnaa murashax hebel dal hebel okay aniga dowladda sacuudiga arabiya kuma xirni ima wadato safiir soomaaliya ka socdaan ahaa oo sacuudiga joogo safiir sacuudiga oo soomaaliya jooga ma aanan ahayn wadashada soomaaliyaan ka rabaa aniga dadka soomaaliya fagaaro badanna waan ka sheegay iyagaan rabaa inay wataan codka iyagaa iskale xoolaha iyagaa iskale abaabulka iyagaa iskale meediyaha iyagaa iskale dadka soomaalida waxaan rabaa inaan u sheego mudane soomaali haddii wax dooranayso soomaalida haddii wax dooranayaan 30 sano dhibaatadan kuma dhacdeen shacabka waxma doortaan laakiin mudanayaasha ay soo doorteen ayaa dadka doortaan mudanayaashuna waa dad soomaaliya waxaa iga go-an mudanayaasha xalaasha ku imaanaya inaan qanacsado dadka soomaalida gacanaan weydiisanaya inay mudanayaasha ay la qanciyaan iyo wax kasta igu taakuleyn karaan igu taakuleeyaan 1960 markii xorriyadda la qaatay baarlamaankii koowaad labaad codadka la kala iibsanayay waxay ku qoran tahay buugga road to the zero in mudanaha la siinayay lacag 10,000 oo shilin Soomaali ah 15,000 oo dollar u dhiganta xilligaas calaa cod 2020 waxyaabaha la wariyay diiwaanka ku jira doorashooyinkii dhacay nus milyan ayaa la warinayay in kuraasta lagu kala qaadanayo yaa waaye cidda ku dooranaysa adigoon lacag bixin doorashooyinka xoolaha lagu bixinaa waa xanuun soomaaliya inay ka gudubtay mudan tahay waayo madaxda dhabta ah kuma soo bixi karto xoole inay bixiso kaliya waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida inaan gacanaha isu qabsano inaan la dagaalano xoolaha sida qaldan loo bixin xoolaha dabcan in la bixiyo way waqtigeeda ma la joogaa qofku waa dhoofi lahaa dad buu la shiri lahaa martiqaadyo samayn lahaa warbaahin uu ka hadli lahaa adduunka dhan kharash waa ku baxan waqtigeeda ma la joogaa iyo coday waxaan rabaa inaan ka gudbo seen kaga gudbaynaa waxaan kaga gudbaynaa madaxda qaranka ee markaasi joogto ayaa xakameyn karta oo say ku xakameyn kartaa inaysan iyadu bixinayn oo saysan u bixinayn qofka inuu ka tago iyo inuu joogo inuu ka tago dhaxal fiican reebo iyo inuu joogo dhiiqeeyo hadduu kala dooran karo qofkaasi meel buu nagu hogaamin karaya adiga oon sacuudina ku wadan sidaa sheegtay dal kalena ku wadan ganacsada aan ahayn oo hadda daahir geelle waa ganacsade milyaneera aan la warinin
seebad ku tagaysaa kursiga madaxtinimada Soomaaliya shacabkana aysan waxba dooranaynin iyadoo qof ajnabi madaxweyne aan loo keenin Soomaaliya aniga waxaan qabaa inaan keensan karo ma tijaabinaa aniga shacabka Soomaalida iyo mudanayaasha baarlamaanka wareegan soo socda waxaan tijaabinaynaa in dadka Soomaalida ay mudane keensan karaan madaxweyne ah iyadoo dowladda aysan gadaal ka raaceen tijaabadaas aan galaynaa ka soco saaxiibo caalami yaad leedahay Soomaaliya rabaa saaxiibo badan inaan u sameeyo laakiin aniga qof ahaan inaan saaxiibo samaysto ma rabo saaxiibada aan samaysanayo saaxiibo qaranka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya iyo saaxiibo la noqotaan dalkan safiirka muddada dheer ka ahayd maxaa cilaaqado kala dhaxeeya dalkan xiriirka aan la lahaa aan safiirka ah muddada dheer waxaan rabaa anigoo madaxweyne ah xiriirkii meeshii uu joogay iyo meeshii uu ku hakaday inuu ka sii xoogeyso oo sii dhaqaaqo iyaga kaliya maahan adduunka inaan saaxiib la noqonaan rabnaa xiriir aan la yeelanaan rabnaa kala xoogan kala dhow kala gedisan markaan xiriirada aan rabo waxa ay tahay xiriiro dowlad Soomaaliyeed oo madaxweynaheedu horkaca dowladda ay la yeeshaan qof gaara oo wax doon ah xiriir adduunyada oo la yeelanayo aniga uma jeedo waxay nagu badnaa madaxda labada baasaboor wata oo wixii burburkii ka dambeeyay banaanka u hijrooday hadda iyagoo madaxa noo yimid baasaboor aan Soomaali ahayn hawada walaal anigu waxaan soo laabtay sanadii 1995 aan dalka ku soo laabtay 86 baan dalka ka baxay Masar aan tagay Masar jinsiyad ma bixiso حتى أسامة مصاري هذا جورس المهجة الجنسية لما تصير باسبور كي سومالي هي بلوغة هي أسقط لصق لابت ذلك سومالي أنا بيت لابد يكون يسقال كي بارلمان كمر كان كبيرة أيام باسبور دبلوماسية قاطع وأنا أقول لندن وأنا تجي لكن وزير سومالي ده تجي موقف سومالي ده سعدانها وأنا أمريكا وأنا تجي لكن وزير تجي بانها تلياني وأنا تجي وفد سومالي ده كبدها لكن مال أمبل جوجي أما لا أمبل أنجوجي oo laasha basaare wax la dhigi jiray Allah ka dhigay aan ka soo qaatay ma jirto marka baasaboorka Soomaaliga ee diblomaasiga ah ayaan isticmaalaa hanti maxad leedahay mudane hanti oo aniga iyo ilmahayga aan ku noolnahay baan leenahay markii la doortane dadka Soomaalida xogta xoolahayga waa la wadaagaya hadda maxaad nala wadaagi kartaa oo hanti ah ama cash ahaato ama maguurta ahaato inta waa leeyahay laakiin ma idin la wadaagaya maalinka la dhaariyay Soomaaliya waxay xaq u leedahay xoolaha aan leeyahay inay ogaato si ay u hubiso inay xoolaha si gadaal aysan ka ziyaadin aysan ka bulaalin laakiin maanta muwaadin Soomaaliyeed oo u tartamaya ayaan ahay maalinka doorashada ay ugu dhacday documentiska wax la arkay ay leeyihiin ayaan u dhiibi doonaa gudoonka baarlamaanka ama hay'adda markaas loogu talagalo maalinka aan ka degayana xoolahayga inaysan bararin aysan dilaacin ayaa la iga rabaa inaan buruuf gareeyo laakiin hadda cid xaq iyo wali ma jirto xoolaha aan leeyahay inay ogaato ظاهر محمود جيل مرشح مدحوينه سفير هره وزير هره aad baad u mahadsantahay inaad karti iyo dulqaad u yeelatay barnaamijkeena awoodda shanaad aad baynu farxad gelinaysaa aad u mahadsantihiin Soomaaliya waa salaamantihiin runaan idin sheegay YouTube-da iyo hadda gashaan 20 sano ugu dambeysay waraysiada laga qaaday iyo qoraaladii laga sameeyay qoraaladii aan sameeyay midka laga sameeyay lama rabay hal shay oo aan ka cudur daaranayo malaha dib waa u fasiri karaa dib u noqosho ma aaminsan waa mahadsantihiin inta ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka awoodda shanaad oo toddobaadkan marti inoogu ahaa murashax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle oo wasiir warfaafin iyo waliba dhanka diblomaasiyadda safiir soo noqday aad baad ugu mahadsantihiin barnaamijkeenan inaad nala daawateen oo aad nala joogteen inta waraysiga uu socday barnaamijka lamid ah intaanu dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah
saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE